السلام عليكم konton xigmadood oo muhiim ah lagana yiri nolosha iyo guusha qofkii alla xigmad siiyo waxa la siiyay khayr badan maanta waxaan gacanta gelinaynaa sanduuqa xigmadaha kaydka bini'aadanka waxaan kala soo baxaynaa xigmadaha iyo oraha ugu qiimaha badan ee nolosha bini'aadanka laga yiri halkan maanta waxaan idinku soo gudbinayaa konton xigmadood oo muhiim ah lagana yiri nolosha iyo guusha xigmadda qofkii alla uu doono ayuu u hibeeyaa diintii ay doontaha haysato cidaas waxaan xoogga saaraynaa xigmadaha iyo oraha casriga ah ee ku saabsan horumarka iyo guusha mu'minku waxa uu raadinayo waa xigmad saaxiibtinimadu waa nimcooyinka noloshan ugu waaweyn qofkii lagu irsaaqa saaxiib waafi ah waxa lagu irsaaqay hanti badan luqmaan al-xakiim waxa aad hiigsanayso oo aad ku riyoonayso 24 saacadood ayaad noqon waadna xaqiijin waxaa yiri Dr. Ibrahim Al-Fiqi dadka guuleystay ma ahan kuwa guusha muuqata xaqiijiyo waa kuwa aanan isdhiibin marka ay fashilmaan ee mar labaad ku celiya si ay u xaqiijiyaan guul Maxamed Cali Kalaay haddaad dareento in duruufaha oo dhammi lid kugu yihiin dadku ka hor yimaadeen waxaad ogaataa in diyaaradu u duusho cagsiga halka ay dabayshu u socoto u dabaalo dhinaca hirarku ka imanayaan gacantaadana ku jeex wadadii aad mari lahayd Henry Ford marka aad qarka u fuushay inaad fashilanto oo aad isdhiibto waxaad xasuusataa kuwa badan ee ku faraxsan inay ku arkaan adigoo isdhiibay oo fashilmay Jifara halgamaa Argentines ah laakiin kaalkabay Kuuba ahaan mid jilicsan oo dhirbaaxo kasta dhulka dhigayso naxdintu dhabarka ka jabinayso fashilka isku dhiibaya noqo qof karti leh waqti waxaynu joognaa aanan aqbalin qof jilicsan Axmed Diidaad Allah u naxariisto hawlaad qaban lahayd maanta bariha la sugi marka laga reebo shayga aanad rabin inaad qabato inta aad nooshahay kama adkaan kartid qof aan quusanayn Brian Tracy saaxiibka haddii uu dhibaato wajahayo dhibkaa ku sii badinin adigoo isweydiinaya maxaan kuu qaban karaa bal adigu fikir kadibna u qabo wixii aad awooddo inaad u qabato oraah caalami ah weligaa xooganow dhoola caddee kuwa jallaafada kula maagan ha isweydiiyaan siduu weli u dhoola caddaynayaa tuubak doontu waa ammaan marka ay xeebta ku xidhan tahay laakiin looma samayn arrinkaas Paulo Coelho dadka khibradda leh wax ka baro sababtoo ah ma noolaanaysid waqti kugu filan si aad wax walba u barato waa arrin muhiim ah inaad dadka khibradda leh wax ka faa'iidaysato waxaan bartay in aanan ku kalsoonaan qof hadalka dadka ii soo guuriya sababtoo ah maalin ayuu sidaas oo kale hadalkayga u guurin doonaa Maajid Maxfuud qofna markii uu dhalanayay ma uu dooro midabkiisa nasabkiisa hantidiisa iyo weliba cidda uu noqonayo ee haddii aanad abuurka ixtiraamin abuuraa ixtiraam Sheekh Axmed Diidaad cadawga ugu weyn ee islaamku waa muslimka jaahilka ah kaas oo xanaaqiisa iyo xamaasadiisa ku sameeya falalka sumcad-darrada u soo jiidaya islaamka dadka kalena marka ay arkaan waxay moodayaan in islaamku uu yahay isaga oo kale Sheekh Axmed Diidaad anigu muslim baan ahay islaamkuna waa diin dhammaystiran laakiin anigu ma yihi insaan dhammaystiran haddii aan gaf ku dhaco islaamka ha canaananina ee aniga ay canaanta Sheekh Axmed Diidaad qofka gudaha ka wasakhaysan ma suuraysto inay jiraan dad wanaagsani Sheekh Axmed Diidaad dadka kuwa ugu dhaqanka xumi waa kuwa marka ay ka caroodaan wanaagaaga inkira sirtaada faafiya noloshaadana diida wax aadan ahayna ka sheega mar kale Sheekh Axmed Diidaad annagu ma nihin kuwa ka dib dhacsan reer galbeedka balse waxaynu nahay kuwa ka dib dhacsan islaamka caalamku waxaan uga harnay kadib markaan ka tagnay diinteenna Sheekh Axmed Diidaad haddii aad aragto ruux faqiir ah wadamada muslimiinta dhexdooda ogow in nin hantiila ah uu xaday ninkaas maalkiisii Sheekh Maxamed Shacraawi ma warwaro ruux leh aabbo sideebuu u warwaraa ruux leh rabbi Sheekh Maxamed Shacraawi aqoonta dhabta ay sinaba kagama hortimaado diinta ee waa u caddayn iyo xaqiijin Dr. Mustafa Kamaal Maxamuud aqoonta maadiga ah guriga weyn inoo ifisay garaadka si inooma ifin Dr. Mustafa Kamaal Maxamuud ogow waxaa tahay mid ka mid ah boqorada adduunka dushiisa ku nool ee u mahadnaq Allah ku abuurtay ee xisaab la'aanta kugu siiyay nimcada weyn ee aan maanta haysato mar kale Dr. Mustafa Kamaal Maxamuud dadku way isbedbedel badan ee qiimaaga ka dhex raadin wajiyada dadka Dr. Mustafa Kamaal Maxamuud
aadamuhu waxa uu aadamo ku noqdaa iska caabinta waxa uu jeclaysto iyo xamilista waxa uu necab yahay. Dr. Mustafa Kamaal Maxamuud. Naftaadu waa markabkaaga oo haddii adigu fuushana waad badbaadaysaa, haddii ay iyadu ku fuushana waad halaagsamaysaa. Mar kale Dr. Mustafa Kamaal Maxamuud. Qofna kuma siinayo madax bannaani, sidoo kale qofna kuma siinayo sinaan iyo wax kala toona. Haddii ay ragnimo kugu jirto adiga ayaa qaadanaya. Malcolm X. haddii aanay jirin dad ku dhaliilaa ogow in aadan libin ama guul xaqiijin. Malcolm X. markii ay akhlaaqdii ay luntay waxa aynu maraynaa heer qofka hadalkii uu subaxii lahaa uu galabtii beeniyo. Mar kale Malcolm X. wanaaggaaga ha ka dhigin buug furan, waxaa jira dad aan xaraf ka mid ah u qalmine. Malcolm X. qofkii ku xumeeya laakiin kuu imaado isagoo raaligelin ka bixinaya xumaantaas, tawaaduca iyo dadnimadu waxay kugu waajibinayaan in aad aqbasho cudurdaarkiisa, wixii kalena aad Ilaahay u dayso. Ibnulqayim. 4 shay qalbiga ayay dilaan haddii ay xadkooda dhaafaan: cunidda, hurdada, hadalka iyo ku dhex milanka badan ee dadka. Ibnulqayim mar kale. calool maran, jeeb eber ah, qalbi daawacan waxay ku bari karaan casharada nolosha ugu qaalisan uguna muhiimsan. Jim Carrey. hadalka kaftanka ah xaqaa'iq badan ayuu xambaarsan yahay. Albert Einstein. unugyada adduunka yaalla waxa ugu badan oksijiinta iyo doqonnimada. Mark Twain. qofka lagu sheegayaa waa carabkiisa iyo qalbigiisa, caqligiisa iyo waxa uu ku hadlayo. inta soo hadhay ayay noqotay waa waxoogaa hilbo ah iyo lafo ah. Subayr bin Abi Sulma. haddii aad rabto noqo qof xun, laakiin ugu yaraan ha noqonin qof beenlow ah. iyo Tolstoy. rajo lagama qabo inaad dhadhamiso nolol guur oo macaan iyada oo ay sodohdaan nooshahay. Joofinaal, gabyaar Roomaan ah. saaxiibka beentahay waa sidii hooska oo kale, wuu ila socdaa markii ay qoraxdu ugu aadan tahay, yacni markii aan wax ahay, laakiin markii aan mugdiga galo, duruufaha noloshuna isbeddelaan, wuu qarsoomaa sida hoosku mugdiga ugu qarsoomo. Khaliil Jubraan. ahow sida aad tahay, waxaadna ahayn ha iska dhigin. ciddii kugu jeclaanaysa arrinkaas ha kugu jeclaato, ciddii kugu nacaysaana ha kugu nacdo. William Shakespeare, gabyaa Ingiriis ah. saaxiibtinimada mar walba faa'iido ayay leedahay, halka jacaylku xilliyada qaar dhibaato leeyahay. musiibo walba oo kugu dhacayso waxaad ka qaadanaysaa darsi, si aad uga baxdo adiga oo xigmad, khibrad iyo cilmiba kasbaday. qoraax Shiinays ah. ka baro xayawaanka arrimahan soo socda. quraanjada waxaad ka barataa sida wax loo kasbado, sida quud loo raadiyo. geelana sabarka ka baro, diiqana kalahaadda ka baro, abeesada xigmadda ka baro, libaaxana geesinimada ka baro, aygana ikhlaaska iyo waafinimada ka baro. haddii aad dareento inaad edeb daran tahay, waxaad ogaataa inaad edeb leedahay, sababtoo ah kuwa edebta daran ma dareemaan inay edeb daran yihiin. Mark Twain. shayga keliya ee sugan noloshan waa isbeddelka joogtada ah. Heraclitus. hogaamiyuhu waa sidii webi weyn, laakiin laamo kala duwan ay ka farcamaan. haddii webigaas macaan yahay, laamaha ka farcamaana way macaan yihiin. geesinimadu waa sabarka 1 saac. Cantara ibnu Shadaad. qofka sarreeyaa xiqdi iyo cadaawad ma qaado, sarrayna ma gaadho qof cadhadu dabci u tahay. Cantara ibnu Shadaad mar kale. magaalooyinku waa qabuuraha bini'aadamka. farqi la sheegaa uma dhexeeyo geerida iyo nolosha, sababtoo ah noloshuba waa hawsha geerida. Dr. Mustafa Maxamuud. dadku way hurdaan, laakiin markay geeriyoodaan ayay soo baraarugaan. Al-Imaam Qasaali. dagaalada ugu adag ee aad dunidan gelayso waa dagaalka naftaada kaala dhexeeya. Dr. Mustafa Maxamuud. qofkii ku dhaca dabinka shahwaadka adduunkan waxaa qasab ah inuu addoon u noqdo dadkeeda. Al-Imaam Shaafici. ii sheeg waxaad waqtigaaga ku bixiso, waxaan kuu sheegi qofka aad tahay. Yuuhaan Guutee. qofkii aamina nolol aan adduunkan ahayn in ayna jirin, wuxuu khasaaray aakhiro iyo adduunba. Jalaaluddiin al-Afqaani.